الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسر وهذا برنامج قارة أو كذا هالليو تضبط حرية أنا وأبو عبد السلام أحمد قبيرة هل كان نقدر داون إنساني والتلفزيون كقرنك تضبط حرية مركز اللي يقول هي وحال لقصوا باللابية لقصوا باللابو لحية لباتك جون كون سقال بقولي لحدن كي مركز قبل له وقوية كقاتين حرية دوده قميسي معيها يقف كديقة كلها oo ka buuxsaday sacabada dalkoo idil asagoo maalkayaga iyo naftayada ka buuxsaday hantidayada sidoo doona ugu takrifalaya dadkayagu ay u xamaalayaan oo aan yacni lahayn meel looga baxo ayaa ficil dheeraada waxaa la yimid ururkii esqual la jiray oo xorrimo doonka ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyay meeshii sanad kasta markii lagu xuso ducooyin ayaan soo jeedinaa haddaana ummadda Soomaalida wadaniga waxaan jecelahay sanad kasta in loo duceeyo ururka Aswal oo Soomaalinimo iyo caafimaad iyo dadnimo ku caanbaxay oo taariikhdoodan ay tahay mid weligiiba cusub ay noqon doonto Aswal 13 dhalinyarada oo gobolada Soomaaliya si kastaba ha noqotee gumaysiga hal mar ayuu cagaha uga duubay markay ogaadeen inaan soo jeedno oo aanan seexanayn oo dagaal naga dhab yahay annagoo aan dhiig badan daadin oo aan hawl badan gelin ayaa ilaahay naga dulqaaday gumaystaha haddaan idiin sheego waxyaalka kale oo dhibaatada badan oo ummadda Soomaaliyeed ku sameey jiray kala gaar buu ahaa Talyaaniga Ingiriisku laba nooc ayaa gumaysigoodu ahaa Talyaanigu dhulka intuu dhigo ayuu dadka ku kor socon jiray sida kale asayla iyo meelo kale aan sheegayn qaarna wuxuu ku dhisay kaabadaha sida dhagaxdii iyo dhoobada intuu isku laalaabay ayuu halka gala aniga ay xukuumee dhagax kaba duwanay dadkaas waana ku go'aanay hadda buundooyinka qaar baa dad ku jira waxa ay sheekay aniga odayaal joogay gumaysiga anu ma joogin laakiin rag joogay oo rugcadaaya iga sheekay kan Ingiriiskuna wuxuu ahaa saayida iyo alaabta ii qaada aniga naagtana hal leeyahay xambaaro aniga islaantayda garabka han lagu geeyo xambaar magaalada han lagu geeyo dhulka yaana ligana dhulka cagaarna loo saarin waa isla sidiyo kiina dhulka ayuu dhigay oo ku dul soconaya kaasina wuxuu dusha hal lay saaro hal lay xambaaro gumaystaas ilaahay ayaa naga dul qaaday laga bilaabay xilaatii Juun ilaa iyo 4 maalmood ka bacdina gobolada waqooyi ay gobolada koonfureed yaa ayuu ka qaatay xorriyadoodii maanta waxaa laga yaabaa xorriyadu xasaalan in la tahay xorriyada xornimo doonka la sheegayo dhibka laga soo maray dadka dhalinyarada oo jooga oo ay dadkaan arag in la sahlan tahay baad moodaa laakiin waxa ku baxay naf iyo maal ayuu dalkan dayacan yahay oo salahayn taajiriin oo salahayn mutacallimiin oo salahayn hub iyo wuxuu isaga celiyo ayaa geeda la qoray iyo dhagax ayaa lagu la soo jeestay ka bacdina gumaystu cagaha ayuu wax ka deeyay sidaasna waxaa ku xoroobay geyiga Soomaaliya oo la yiraahdo hadda labada gobole waqooyi iyo koonfur inta la yiraahdo ayaa isku mar cagaha looga duubay halkaasna uu ka baxay gumaystii ayaa ka baxay waxay noqotay dawladda Soomaaliya waxaana madaxweyne ka noqday aadan Cabdulle Cismaan asagana uu dhintay naxariis janna Allah ka waraabiye halkaas ayay marka dawladdaasi kula maanta waxaad moodaa inay nala fududahay xorriyadu ayaad moodaysaa xorriyada halkaas ayaan ku soo dhaafayaa waxaa jira bal waxaan leeyahay aad xusuusidid hadda gabayo cusub oo aan leeyahay bal aad ku fiirisid gacalkiya sokeeyaha haddii gobol la eedoobo gacalkiya sokeeyaha haddii gobol la eedoobo garmadowga xoogala haddii gowrac lagu laayo galaayuuska qeyladu hadday goor kastaba yeerto in colaada guri ba ay tahay go-ahayuu sheega haddii galabta roobnooda oo galangalsooduda galalkoo biyoobay iyo haddii gorofka loo buuxsho inay nabadda gurigeena tahay go-ahayuu sheega inay nabadda gogosheeni tahay go-ahayuu sheega inay nabadda gurigeeni tahay go-ahayuu sheega gaadiidka inay noo tahay go-ahayuu sheega inay nabaddu gacalkeeni tahay go-ahayuu sheega nin walaalkii gubayaa ma laha garasho khayraade nin walaalkii gubayaa ma laha garasho khayraade in colaadu guri ba ay tahay go-ahayuu sheega gadiyo mid kala saar yaa sagaalka daanyeer duutiyo xaqoodii cooflaha duqooda uga soo dacwoodeen
ugu deeqay tii kale muxuu ugu dan leeyahay ficil laga dugsado iyo doofaar abaal ma leh bisadana dekeeyaay haddaad siisa daqa iyo hilbaha tii u dooroon dafirtee ma moogtahay dameerkana sidiisaba haddaad siisa wax wadana xaalkii dambaabiro ku dilaysa weeye aarsa doola baa jira duqdii meesha lagu qalay raqdeedii dareemo weli daydayaaye markuu daharka in la helo waa dabargo-yse maxaa lagula daalaa dajiyo mid kale saar waxaa naha duul muslim ah dalkooduna uu ku yaal dunida dacalka africo dadnimo soomaaliyaho diirkooduna yahay madow dadnimo soomaaliyaho diirkooduna yahay madow mar baan ahay dahab iyo malab dushaydana lagu gamaa mar baan ahaa dacar qaraar dab iyo holac lagu gubtaa midise waa iga digniin damaaciga soo socdow haddaad gudcur moodidama dayaxu waa 15 dareenkuna waa fog yahay dareenku soomaaliyeed inay kor u qaado oo kor eegaan ayaan doonayaa gobonimo doonkii intay xusuustaan dalkooda maanta meel kasta gobolaysiga intay ka baxaan qabyaalad iyo waxa daciifa intay ka baxaan inay meel kasoo wada jeestaan oo magacoodii soomaaliyeed ay daydayaan sidaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo ah abgaan cabdisalaam axmed gabayre waxaan kaga tegayaa meel kastoo joogtaan daawadayaasha soomaaliya meel soomaaliya oo mid ah ayaan idinka doonay sidaas ayaan ilaahay soomaali mid ha ka dhigo ilaahay soomaali mid ha ka dhigo ilaahay colaada hanaga demiyo ilaahay hanaga demiyo qabyaalada iyo kooxda allah hanaga demiyo soomaali mid allah ka dhigo insha allahu tacaala guul iyo rajaynaya insha allah